Cuqaasha waayeelka waxgaradka haldoorka iyo maamulka heer degmada Garadagh ayaa si weyn u taageeray ku shandhaynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku sameeyay xukuumadda iyagoo si gaar ah u hambaliyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafadhi iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Cabdirasaaq Xuseen Cali Muuse sidoo kalena soo dhaweeyay badhasaabka cusub ee gobolka Sanaag Maxamed Cilmi Xuseen isla markaana sabootiyay badhasaabkii hore ee gobolka Sanaag kana tilmaamay waxqabadka ballaaran lagu taaban karo ee badhasaabkii hore gobolka Sanaag ka fuliyay muddadii uu joogay gobolka horena waxaa halka ka hadlay cuqaasha iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo maamulka heer degmada Garadagh dhammaantoodba hadalka iska daba qaatay ayaa waxay dhaheen sida tan wanaag ilaahay ay ka jasaaysiiyaan leeyahay waa wasiiradii hore martabada la bedelay kuwa dambe la magacaabay waxaan leeyahay dalku wuxuu u baahan yahay isbedel idinkana xilka la idin dhibay Allah idin fududeeyo waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa wasiirka maxaan ku dhahday diinta iyo waqaafta Sheekh Albani oo ah sheekh reer Garadagh wasiirka hore caafimaadka qorshaha qaranka caafimaadka loo bedelo reer Garadagh labada wasiir si gaar ah u hambalyeynaa waxaan kaloo si gaar ah u hambalyeynayaa badhasaabka cusub ee gobolka Sanaag Maxamed Cilmi waxaan leeyahay guddiga soo dhawow gobolka Sanaag ku soo dhawow oo gobolkii aad u dhalatay waad taamaysaa hawshiisa oo gobol hawl badan waxaan si gaar ah u sagooteeyaa guddoomiyaha hore gobolka injineer Axmed oo inta gobolka jooga wax badan madaxweyne xilalka aad magacawday waada siibtay annaguna degmahaan iyo maamul ahaan iyo cuqaal ahaanba waa taageeray waxaanu si gaar ah u samaynaynaa wasiirka caafimaadka iyo wasiirka diinta iyo waqaafta baanu si gaar ah u salaamaynaa sidoo kale waxaanu salaan gaar ah iyo soo dhaweyn u diraynaa badhasaabka cusub ee gobolka Sanaag loo soo magacaabay Maxamed Cilmi Xuseen Axmed aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa kii tagay ee uu bedelayna waa hambalyeynaa waxaanu leenahay ugu mahadsan yahay waxaan soo dhaweynaynaa magacaabista wasiirka caafimaadka Xasan Gaafadhi waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka diinta iyo waqaafta waxaan kaloo soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Cilmi Xuseen waxaan leenahay Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay waxqabadka iyo hawlaha cusub ee hadeeraad gashay badhasaab iyo wasiir iyo qaab kasta ay tahay waa kaaga mahadnaqaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kale oo aad samaysay saaraguba sheegay gaar ahaan wasiirka diinta iyo waqaafta iyo wasiirka caafimaadka gudoomiyaha gobolka Sanaag baan si gaar ah u soo dhaweynaynaa waana soo dhaweynaynaa isku shaqaynta aad u samaysay xukuumaddaadii haday gobolada tahay iyo haday golihii wasiirada tahay intaa ka bacdi waxaan halkan maanta ku sagooteynaa badhasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Xasan Asmaan waxaan leenahay badhasaab taariikhda ku xusi doonta shaqadii wanaagsaneyd ee aad ka soo qabatay gobolka aad iyo aad baad nolol shaqaysay gobolka oo dhan baad uga shaqaysay taariikhda ku qortay Maxamed Cilmi Xuseen soo dhawow gudoomiyihii horena waan si sagootiyayaa isagoo ah gudoomiye ku suntan nabadda iyo waxa la qabtay wax kalena wada harsanaayeen oo meel loo keenay waxaan markaa gudoomiyaha cusubna iyo ka cusub ee loo magacaabay aan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay gudoomiyihii hore gobolka gudoomiye wanaagsan buu ahaa oo shaqo ballaaran qabtay oo daacadnimo iyo hawlkarnimo iyo shaqo hufan ka qabtay aad iyo aad baan uga mahadcelinaa ilaahay baa mahad leh qofkaan ilaahay binaadamka uma mahadnaqan ilaahay uma mahadnaqo waxaan leenahay gudoomiye waa sagooteynaa shaqada gobolka haddii tahay xagga gobolada iyo haddii tahay xagga wasiiradaba taasoo dardar gelisa shaqada qaranka ragga xilalka laga loo dhiibay cusubna waxaan leenahay Allah idin ku guuleeyo raggii horena waxaan leenahay shaqo wanaagsan ma soo qabateen Allah idin ka jasaaysiiyo marka labaad waxaanu halkan hambalyo u diraynaa badhasaabka cusub ee gobolka Sanaag waa hambalyeyn iyo soo dhaweyn aan soo dhaweynayno dhammaan madaxda uu madaxweynuhu ku soo saaray xil wareejintiisii aan isbedelkiisii ee u dhashay degmada Garadagh sida wasiirada caafimaadka iyo awqaafta iyo badhasaabka gobolka Sanaag Maxamed Cilmi Xuseen waxaan leenahay dhammaanba madaxweyne waada siibtay iyadoo markay shaqeeyeen sida injineerka kale haddana waqtigii loo baahnaa baa Maxamedow waxaanu ka filaynaa inaad isdaba raaciso inta yar ee daldalool ay ku dhex jirtaa Madar Sare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Garadagh